halkan waa suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho waa suuqa ugu weyn dhinaca ganacsiga ee dalka Soomaaliya saaki gabi ahaantii waa uu xiran yahay waxaana saameyn ku yeeshay baaqi ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqa bakaaraha ay soo jeediyeen in maalinta birita la xirayo halkan waxaana saakay yahay suuqa bakaaraha mid xiran gabi ahaantii qaybihiisa ganacsiga dadweynaha kala duwan ee halkan ku ganacsada oo la hadalnay ayaa inoo sheegay in suuqa bakaaraha sababaha ay u xiran ay tahay in ganacsatada lagu kordhiyay canshuurihii dawladda ay ka qaadaysay taaga suuqa waxa loo xiray maadaama ganacsatada ay ku baaqeen shal oo sabti bari axad in la xiro suuqa markaas la aligeeda u xirna maadaama ay dawladda ku kordhiyay canshuuraadkii ganacsiga marka aniko tixgelinayn amar ganacsada suuqa saak u xirna goobe ganacsi canshuurihii la kordhiyay aad sheegteen in la kordhiyay awgeed ayuu suuqa u xiray dabcan saas waa dawladda saasay noqonaya saako dhan hada dambiil ma qaadin gaajidayda maanta ka koow isbaxaysigii ilaa ay hada dambiishii aan qaataan ilaa ay hada haastaa wax aan hada maanta aan ka soo saartayna male weedo aan soo shaqo tagi ilma aqooman aan ka soo tagi waxna ma haayo hada gurigayga hadaan tago wax aan siinaay male aad anshuurtaan oo iika ay kor nooga dhigeen inay naga yareeyaan aan u baahanahay dhibaatada ay haysato aad maanta aan ugu xugnahay dad Soomaali aan nahay suuqa ilaa amar dambe ganacsatada waaweyn wixii ka soo baxan sugeynaa ilaa amar dambena wuu xiraanayaa dawladda ayaana warka sugeynaa insha Allah taala